dalkeeni haybadii dalkeeni hanashada mandeeqiyo lagu helay xawaale igaaga taageli hantideed waa qaran halabsiga midnimaadiyo Soomaaliya dooro hor socod mooye hakan mayso weligeed hor socod mooye hakan mayso weligeed hantideed waa qaran halabsiga midnimaadiyo Soomaaliya dooro hor socod mooye hakan mayso weligeed hor socod mooye hakan mayso weligeed idinkuna hayeeyo dhammaantiin haweenko umad lagu hitaayo danta guud hagayso lagu hoogin hoynoqo danta guud hagayso lagu hoogin hoynoqo idinkuna hayeeyo dhammaantiin haweenko umad lagu hitaayo danta guud hagayso lagu hoogin hoynoqo danta guud hagayso lagu hoogin hoynoqo Puntland waa horseedkii hal abuur aqoontiyo hikaadii afkeeniyo disaha tacliintiyo hilinkeeni noloshee ha hilmaamin abidka وحفلت كأذن إن كستو أي حوار تمكن صدق دعوة واحد كود أغسطس أو كوباجنيد حلقة الأساسي هذانا إلا شري أو سدي سانكي يو من دبي يقول إني سادرته مركا سادلو سعتانا دي حفلتنا وحفلت له قبته وضمنا أدون كوردان يو سوماليا بنتلاند مركا مناسبة أنه مساس كسبسان أدبان دوما سنتين ناك سوق بكشان markii xigta waxaan rabaa inaan waxa idinka sheego barnaamijkeen caaw sidoo socon doono anoo idinka raali gelinayo xogaa in yar inuu soo dahay oo aan ugu talagalay inuu bilowdo adiga nus saacad ka hor laakiin waxa weeye haddaan Soomaalinahay xogaa waa iska qarbo badanayo wuxuun baa dhinac ka baxa markaad xagga dado marka taan waan idinka raali gelinaa marka barnaamijkeen sidoo ku bilowday wuxuu caaw halkan waxa ka hadli doona dhaqaatiir jaamacadeed jaaliyadda safaaradda dad muxtaram ah oo aan ku casuunay xafladda iyo qiimaheeda waxaa hadli doona oo kale madaxdii hore ee jaaliyadda iyo ardayda Puntland waxaan meesha ka maqnayn ismada Puntland oo ismo waaweyn oo reer Puntland halkan nagala joogaan waxaan filayaa haddii ay jiraan dad aan ka tegin raali aadaan anoo hadda aan xusan balse cafwan intaas kadib waxa inoo xigi doona barnaamijka waxa inoo xigi doona waxa jira fanaan baa inoo jooga fanaan weyn oo Cali Najiib marka intaas ay dhamaato Cali Najiib ayaa barnaamijka iyadoo aan fasix doono odayaasha iyo waxaan soo dhaweynayaa marti sharafta qiimaha leh ee caawa nagala soo qayb gashay xuska sanad guurada 15aad ee dawladda Puntland ee Soomaaliya sida ogtihiin Puntland waxa la asaasay 1998 markay taariikhdu ahayd ama bishu ahayd 1 Agoosto sidii walaaluhu ay sheegeen Puntland waa qayb ka mid ah ummadda Soomaaliyeed ama qaranka ummadda Soomaaliyeed marna ma dhacayso Puntland inay ka go'do ama gooni u istaagto ummadda Puntland
kastana waxay ka shaqaynaysaa horumarka nabadda heshiisiinta walaalaha Soomaaliya shacabka Puntland in badan wuxuu ka shaqeeyaa nabadda waxa laga dayadaa markii la leeyahay ku dayo Puntland ku dayo wax kale laga dayanayo waxa laga dayanayaa nabadda horumarka iyo Soomaalinimada haddaan markaan waan ku hadlo gudoomiyaha guddiga ku meergaarka ururka Puntland halkan waxaan ka soo jeedinayaa in la joojiyo qalalaasaha ama dhibaatooyinka ka taagan Soomaaliya meel kasta ay ka taagan yihiin in la ogaado dhiigga muslimka ah inuu xaraam yahay kan ku daadanaya Kismaayo kan Kismaayo ku daadanaya wuxuu la mid yahay kan Garowe ku daadanaya kan ku daadanaya Boorama wuxuu la mid yahay kan Jabuuti ku daadanaya ummadda Soomaaliyeed waa mid dhiigu waana wada dhibaya waxaan soo jeedinayaa in xalka Soomaaliya inta badan waxa xalka Soomaaliya lagu heli karaa midnimo halka waxa ku qoran oo hal dhig noo ah halku dhig noo ah aan wada gaarno horumar waxa gaari kara dhalinyarada Soomaaliyeed oo aqoon-yahanka ah inay wadankii dib ugu laabtaan inta badan waxa arkaysaa dhalinyaradii oo ka cararaysa wadankii oo tahriib iyo dhibaatooyin u cararaysa yaa ummadda dhibaatada ka saaraya waa inaan is weydiinaa ummadda dhibaatada waxa ka saaraya dhalinyaradaas waa inaad ogaataan SYL maxay ahaayeen SYL waxay ahaayeen dhalinyaro annaga nala mida oo gartay kaalinta ay leeyihiin marka halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole isla markaana waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh labadaba aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay sanad guuro wacan والسلام عليكم أنا دكتور دكتور أونير سجاسني تضبطي بقى معلم دكتور نودجي وحمر البكودو عايزتا إله الدولة عادلة مر البكوس عليها هم تاني كمر كليا بلا هيد لأن اللي يرى أو عن دولة سواء رج واحد هاي سلام مركزنا مر البديس كل عايز إله الدولة عادلة waxa ila noqotay wax maarta la yaab leh sanad kadib waxa markaas dhashay dowladka Puntland oo aan caawa u dabaaldegayno sanad gooradiisii habeenkaas ay dowladka Puntland la asaasay waxa habeenkaasi la beeray geedkii ay ummadda Soomaaliyeed harsan lahayd inta laga gaaray markaas dowlad Soomaaliyeed oo ummadda dhan markaas waxa weeye ay hoos tagaan maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waa sanad gooradiisii 15aad isla markaa waxa xusid mudan 98 dawladii la asaasay iyo geedkii markaa la beeray in mirihiisii la cunay 2012 markii dawladda federaalka ah la helay oo ay saldhig u ahayd maamul goboleedka Puntland ma ilaahay xamdigiis markaa waxaan marka aan ku xoojinayaa aan ku celinayaa inay sanad guurada Puntland aysan muhiim u ahayn kaliya ummadda reer Puntland inay muhiim u tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan intaas waxaan raacinayaa hadalkii qiimaha lahaa ee ustaad Shariif oo ahayd waxa weeye Soomaalidu inay maaragtay mar walba midoodo oo gacmaha is qabsato runtii waxaan u maleynayaa Puntland waa meesha maanta aan cid laha aysan jirin Soomaaliya oo dhan u dhaxaysa waa meesha kaliya ee qofku waxa uu marka ka yimid iyo kan xamar ka yimid iyo kooqooy ka yimid waxa uu maanta ay isku mid ka yihiin waxaad ogtihiin in sanadkan gudihiisa loo dhisay barakacayaashii guryo aysan haysan ummadda marka meesha ku dhalatay ee kaabka ku dhalatay taas waxay cadeynaysaa inuu yahay dhulkan dhul aan la kala lahayn inuu yahay dhul Soomaaliyeed sidaas darteed caawa waa habeen Soomaaliya oo dhan inagu weyn mar labaad waxaan u hambalyeeynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan annagu ka urur ahaan runtii wax badan baa waxaan isku daynay inaan midnimada ummadda Soomaaliyeed qaybta aan ku leenahay aan ka qaadano Malaysia aan joognaa kulay waxaan awoodno wayarta inta reer Malaysia inaan qaybtooda ka qaadano waxa xasuusataan 5 sano ugu dambeysay aadam waashantahay 5 sano ugu dambeysay in ay ahayd mar walba marka ay dhacayso doorasho Soomaaliyeed inay ku dhici jirtay buuq inay ku dhici jirtay isqaqabsi inay ku dhici jirtay iscayrsi iyo ayadoo ummaddu ay kala tahay koox iyo qabiil laakiin sanadkan inaysan taasi dhicin ummadda Soomaaliyeed gacanta is haysata ay hal albaab ka gashay howlkii doorashada hal gudoomina ay dooratay iyagoo faraxsan ay ka soo baxeen halka gudoomina oo shaqeynaya taas sababteeda waxa iska lahaa ummadda reer Puntland iyo guddiga reer Puntland baa sababteeda lahaa waxayna ahayd mudayn aan midaynayna ummadda Soomaaliyeed ee halkan ku nool
intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka aan kaga qayb qaadanayay sanad guurada runtii waxaad daawateen kilib yar oo ka hadlaya waxqabadkii ardayda iyo jaaliyadda Puntland sanadkii la soo dhaafay waxaan u maleynayaa kilibku uu socdaa wali ma dhammaan isla markaas ma dhamma intaan soo qaadnay waxqabadkeygii wax badan baa runtii ka dhiman waxaanad ka aragtaan runtii waxqabadkeyga caawa markhaati ka ah dhalinyarada ama guddigii shaqadan hayay caawa quruxda badan aad aragtaan oo ahaa guddi ka yimid guddigii shaqaynayay sanad iyo barkii la soo dhaafay taas waxay caddeyn u tahay waxqabadkeyga inuu muuqdo
تكستي تتغادين الكتكستي ودي كاتقي ودي كاتقي استاقير وليقين استاقير وليقين تتغادين الكتكستي تتغادين الكتكستي ودي كاتقي ودي كاتقي استاقير وليقين استاقير وليقين marka xigta horta nafteeda nafteena waxu dardaarmaya cabsida ilaahay laana rabbana subhanahu wa ta'ala huwa haqqun man dhukr yani markastoo la kulmo iyo markastoo la kala tago waxa muhiim ah in la isku dardaarmo cabsida ilaahay salaan kadib aniga waxa horta sharaf iyo caawina ka soo qayb galo xuska lagu xusayo 15 sano guurida ka soo wareegtay dal udug ama Puntland markii la helay asaaskeedii marka xigta runtii waxa muhiim ah in aan Ilaahay ugu mahadnaqno Eeboweyne subhanahu wa ta'ala nabadda iyo horumarka barwaaqada xasiloonida uu ku manaystay reer Puntland taas oo aan la soo koobi karin marka kale waxa xusid mudan inaan xusno madaxdeena sharafta lahayd salaadiinteeni aabayaasheen awooyaasheen iyo dhammaan dadkii mataqaana soo gaarsiiyay maanta Puntland meesha ay joogto runtii badankood ciid waa ka hoos maray laakiin waxay mutaysan yihiin in la xuso markasta loo duceeyo waxaan jeclaan lahaa wax yar inaan ka taabto taariikhda Puntland ma 15 sano mise waa ka badan tahay horta su'aashaas muhiim ah in la isweydiiyo haddaan dib ugu laabano qarniyadii hore ama qarnigii 10aad ama qarnigii 20aad bilowgiisii waxa muhiim ah in bariga Afrika ay ma jireen niman dalxiisayaal ah nimankaas oo u bixiyay Puntland waxay ugu yeeraan af Carabiga ardul bakhuur yani dhulkii uduga magacan Puntland ma aha magac yani reer Puntland ay la bixeen ee magac ay u bixiyeen Iqriiqiyiintii iyo Greegi iyo nimankii Xadramiinta ahaa ee Yamaniyiinta kulay Soomaalidu waxay tiraahdaa ana hadlay looma hadlo khayrul kalaam ma qalla wadal hadalkiisa ugu qiimaha badan waa ka yaraada oo koobnaada wixii khayr oo waxay ka aatay nafteeda wixii khayr waxay ka aatay min Allah subhanahu wa ta'ala wixii sharayna waxay ka aatay nafteeda iyo shaydaan wixii aan ka tagay waxaan uga tagayaa mudanayaasha sharafta leh inay ku daraan dhammaan mar labaad iyo mar saddexaad waxa jeclay hambalyo inaan u diro guddiga soo qaban qaabiy xafladan aadka qiimaha u leh oo iyagoo soomana oo arday oo qaarkood imtixaan lahaayeen ay naftooda geliyeen inay xafladan qiimaha leh ku xusanayaan 15 sanadii ka soo wareegtay Puntland soo qaban qaabiyay anigoo hadalka soo koobaya mar labaad iyo mar saddexaad waxa leeyahay hambalyo reer Puntland iyo Soomaali weynba xafladan xuska u qabanaysaaniin sanad guurada ka soo wareegtay 15aad sanad guurada ka soo wareegtay Puntland maalinkii la aasaasay Puntland oo caawi lagu qabtay xaflad halkan Malaysia iyo wadankan anagu aan u matalo Soomaaliya farxad weyn oo aad u qiimo badan ay iyada tahay caawa rag aan matalayo asxaabtayda ah iyo safiirka iyo guddoonka ku-xigeenka waan soo salaamayeen waxaanay ka wada salaam assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Puntland waxay ka mid tahay Soomaaliya Soomaaliyana waxay ka mid tahay ummadda Islaamka ummadda Islaamka isagoo caalamka Ilaahay u sameeyay oo dhamaantii makhluuqa dhanba aan hal Ilaahay leeyahay ayaa ummadda Islaamka iyo Ilaahay la hadlaya subhanahu wa ta'ala dadka khitaabka loo soo jeedinayo ee lala hadlayo ayay yaanana ka mid nahay oo Soomaaliya ka mid tahay oo Puntland ka mid tahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ya ayyuhalladheena aamanu
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وفير سمرك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا لها ضياء وضدك إيمانك الله إلى مسلمين تا وجمع ويان جمعوا وعاملوا ونقنيا جمع يروا ونقنيا اركعوا والليل واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى فاتحة مركان تكنين وحلينا إياك نعبد وإياك نستعين أنا قلنا إلهي وانكو عابدنا نون تا ونون الجمع ويا نفعل مركي اللي هذا نحو ذا تذكي قانون ويقرن ينوى جمع إلهي وأذيك أيامكو عابدنا حدي أن إلهي سبحانه وتعالى أن لنا وانكو عابدنا إياك أعبدك وجرت ماشي أذانكو عابد يا ماها وجمع إياك نعبد جمع مركو إلهي لها ذيل إلهي وحنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون تنوى أمة كرية أنا أقول إلهي أبو ريبانا وأنا ربكم فاعبدون سيدا مركي تهي وأمد أي تاس كرية تهي الله سبحانه وتعالى يتكلم له شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا بلو فيرس وحالدين كذي وحي لو كذي يا نبي نوح يا نبي إبراهيم يا نبي موسى أمانتود أي الذين جي أنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا بلو فيرس هكذا تجينا لنا له وفيرسو إلهي وحوليه هكذا تجينا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتنذب ريحكم أمر منا وهدق منا أي إلهي سيدا مركا تاي مركا محل نوغا باهياي هدي بنتلان أي برواقة كنوشهاي وحول بدن أي هيستو خير بدن هيشو هسه يشي مقالوه كلا سوماليا أي بوبريهين وحبا قفك بنتلان كي إدمنان مقابو دقناشا مقابو محاير ولا ليسي كلا قاجو دمانيا حولها بدن بنتلان هيشي إدمنان نفتيسو ما دريميسو قفك إيمان كلا إدمنان ما دريميو هدي بنتلان أي نبض كنوشهاي أسه ولا ليسي كلا ودبك كعيو قفك بنتلان ما دريميو إدمنان ما دريميو ساوت ولا ليسي كلا الكيال marka halka hore si dhaafo shacabka gobolada bari degan taban taariikh bay Soomaaliya ku lahaayeen dadkii soo halgamay bay ahaayeen xornimada dadkii qaybtii libax ka soo qaatay bay ahaayeen maxaa laga sugayaa marka waxa laga sugayaa mushkilada Soomaaliya taagan xalinteeda qiimo inay ka ahaadaan si Soomaaliya midnimada loogu soo celin lahaa qiimo inay ka ahaadaan mansuubka meeshii raggii hore xornimada garaafka meeshii gaarsiiyeen إن مرة هو صار عن كم سوينا وحن كسوينا ماشي رجع هو رجع سيد مالك سيصير رئيسان كسوينا سنة كورونا أحسن أنت كذب هل كان بنسوق جاري أنا جو حق كلوس السعودية أستراليا ننعس لأن يرد ريبتولان يقعد صدقنا هل كان حفلة ضدقه حفلة عيد أيوه حفلة بتولان بعد السلام أنا جو كهاليا magaca gabdhaha reer Soomaaliya special Puntland waxaan halkan aad iyo aad uga hambalyeeynaya dhammaan bulshada reer Puntland meel kasta ay joogaan waxaan uga dirayaa hambalyo iyo bogaadin waxaan leeyahay sanad guuro wacan waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kuwii ku gaara nabad barwaaqo
hanashada mandiqiyo lagu helay cawaale igaaga taageli lawaa horseedkii halgankii xornimaadiyo haybadii dalkeeni hanashada mandiqiyo lagu helay cawaale igaaga taageli hantideedu waa qaran halabsiga midnimaadiyo Soomaaliya duro horu socodba mooye hakan mayso weligeed horu socodba mooye hakan mayso weligeed hantideedu waa qaran halabsiga midnimaadiyo